albaabkii ayaan furay laakiinse waxba kumaan dhaxara qolka dhexdiisa furihii ayaan tuuray isla markaana waxaan lahaa soo carar walaashayay soo carar شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان أصوم نهارا وأذكر ربي وأتلو القرآن ليشفي قلبي سأقوم ليلا حتى الفجر أشكر الله أصلي وأدعو الله أن يغفر لي وأدعو أن يتقبل عملي وأدعو ربي أن يدخلني جنة الخلد أنا وأحبابي أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo dhawaada asxaabtida sharafta badan ramadaan wanaagsan waxaan idin rajaynayaa cibaado suuban iyo camal saalixa waxaan maanta ka sheekayn doonaa qisadayda waxaan jiraa 54 sano waxa igu dhacday qisadani waqti aan jiray 12 sano waqtiga ay qisadani igu dhacday waxaan dhigan jiray iskuul laakiinse waan la soo fasaxay oo waxaan ku jirnay waqtigii fasaxa isla markaasna guriga ayaan iska dhex joogay waqtigaas anigu waxaa la noolaa hooyaday iyo aabbahay iyo walaashay aabbahay ayaa yimaaday waxaan dhahay waxaan soo booqanaynaa waalidiintayda maxaa yeelay waqti hore ayaa igu dambaysay waqtigaas miiska cuntada ayaan dul fadhinay isla markaasna aabbahay waxa uu dhahay hooyaday aabbahay ayaan u tegaynaa waxaan la soo jooganaa 2 isbuuc oo dhammaystiran halkaas ayaan waqti ku soo qaadanaynaa maxaa yeelay hooyaday aabbahay aad ayaan ugu xiisay hooyaday waxay dhahday maya ma tegi karno maxaa yeelay halkaas waa meel halisa waxa ay dhaanta intaan 2 isbuuc oo dhammaystiran ku maqnaan lahaa aniga oo subaxii taga casarkan ka soo caraaba aabbahay ayaa aniga ila hadlay waxa uu dhahay halkaas waxa imanaysa eedada waxayna soo kaxaysanaysaa labadeeda hablood isla markaasna kuwaas ayaa la ciyaari doontaa anigu aad ayaan u farxay markaan arrintaa maqlay maxaa yeelay anigu aad ayaan u jecelahay in aan la ciyaaro carruurta yaryar waqtigaas anigu waxaan ahaa mid aad u xiiseeya inuu tago guriga awoowihiis laakiinse hooyadii aad ayay arrintaa uga xumayd anigu maalin kasta waxaan ahayn kuwa subaxii taga casarkiina ka yimaada laakiin maalmihii dambe waxaanu noqonnay kuwa u diyaargarooba inay halkaa ku noolaadaan waxaanu xirxirnay alaabtaydii waxaanu ahayn waqtiga kuwa soo qaatay gaadhiga isla markaana safar dheer ayaan soo galnay nasiib wanaag waannu soo gaadhnay gurigii awoowo ayadii ayaa si wanaagsan noo soo dhowaysay isla markaasna waxaan la ciyaarayaa anigu axlaam iyo xamda kuwaasoo eedadii ay dhashay marka habeenkii la gaadhay waxaannu isugu nimaadnay miiskii cashada wakhtigaa dadku waxay ahayn dhammaantood kuwa cashaynaya isla markaasna hooyaday ayaa hadashay waxay dhahday wixii ma sidiiba mise waxbaa iska beddelay dhammaan dadku way xanaaqeen laakiinse awey ma uusan xanaaqin awey wuxuu dhahay anigu waan uga digay dadkan waxaasoo dhan laakiinse hadalkaygu ay maqli waayeen wixiina waa sidii ayadii ayaa aad u xanaaqday waxayna dhahday idinka oggolaan maayo inaad waxyaabaha ka hadashaan ma wanaagsana inaad ka hadashaan bahalka ee iska aamusa axlaam ayaa hadashay oo waxay dhahday maxaa waaye waxaad ka hadlaysaan waxba kama aanaan fahmine laakiinse eedaday waxay dhahday idinku carruur yarar ayaa tihiin sheekadana waa idiga weyn tahay ka kaca meesha tani waxay u gaar u tahay dadka waaweyn oo keliya wakhtigaas annagu waxaan ahayn kuwa dibadda u soo baxa isla markaasna xamde ayaa ila hadashay waxay dhahday annagu dad waaweyn ayaan nahay maxaa waaye waxay inaga qarinayaan anigu waxaan dhahay wax walba ay qarinayaan aniga ayaa soo ogaanaya
qorshahoogana aniga ayaa dabagelaya. anigu wakhtigaas waxaan ahaa mid ayeeyadii daba socda. eeday waxay soo qaaday cunto, wakhtigaasna waxay geysay qolkii, islamarkaasna way hadashay, laakiinse anu ma fahmin waxay ka hadlaysay. anigu waan daba socday. marka ay ka soo noqotay waxaan u soo cararay dhalka qolkayga. waxaan ka cabsanayay inay eeday aragto. markaan imaaday qolkii hurdadana aad ayaan u fikirayay. su'aalo fara badan ayaa maskaxdayda ka dhex guuxayay. waxaan isweydiinayay muxuu yahay waxa halkaa lagu qarinayaa. markii aan seexday waxaan maqlay codad aad u fara badan. wakhtigaas anigu aad ayaan u naxsanaa. waxaan isweydiinayay ma badbaadi doontaa caawa? sidan maxay tahay? aad ayaan u naxsanaa. shirka oo dhan ayaa gariirayay. subaxii markaa la gaadhay waan soo kacay, islamarkaasna aabbahay ayaan su'aal weydiiyey. waxaan ku dhahay, aabbo xalay ma maqashay cod? aabbahay wuxuu igu jawaabay, maya aabbo, wax coda ma aanan maqal, laakiinse waxaa laga yaabaa codkaas inay dhagahagu sameeyeen. islamarkaas su'aashaas waxaan weydiiyey Axlaam iyo Xamda, iyaguna sidoo kale waxay dhaheen ma aanan maqal wax coda, laakiinse waxay dhaheen xalay waxaan maqalnay aabbahay iyo hooyada oo ka sheekaysanaya walaashaada yar. anigu waxaan ku dhahay, oo maxay lahaayeen? maxay ka sheekeynayeen? waxay dhahday, waxay lahaayeen maxay inanteen halan kala soo dooneen? bahalkii waa sidiisii, waxna iskamay bedelin. waxaa laga yaabaa inay dhibaato soo gaadho ilmaha yar. anigu aad ayaan u naxay. waxaana dhahay, ma dhici karto oo ayeedima waxay ku qarinaysaa qolka waxyaabaa dadka cuna. taasi suurtagal ma ahan, aniga ogaan doona. Axlaam ayaa hadasho, waxay dhahday, maya ayeeyo waa qof wanaagsan, kumana qarin karto wax dadka cuna halkaas, laakiinse waxaa laga yaabaa inay waxyaabo kale jiraan. anigu waxaan ku dhahay, wax kastoo jiraba caawa ayaan soo ogaan doonaa. isla markii hadalkaa maqleen aad ayay u naxeen labadii hablood. anigu waxaan u yimaaday awowgay. waxaan ku dhahay, awow qolkaas maxaa ku jira oo maxaa lagu qarinayaa? awow wuxuu ugu dhahay, oo ma waxaad gashay qolkaas? anigu waxaan ku dhahay, maya awow ma gelin, laakiinse adiga ayaan ku weydiinayaa maxaa ku jira. awow wuxuu dhahay, haddii aad qolkaa gasho cag aad leedahay inaad saarto, ayadaa si xun ayay kuu dili doontaa. iska jir haddaba, dhiiqalgaha la gelin. anigu wakhtigaas waxaan ahaa mid aad uga fikira waxaas. waxaan isweydiinayay muxuu yahay waxa saa u weyn ayeeday kugu dilayso. islamarkaasna awow waxaan ku dhahay, awow muxuu yahay waxaasi? waxa uu dhahay awowgay, anigu wax walba waanu u sheegay, waanan uga digay waxaas inay iska qabtaan bahalkaas, laakiinse iyagu waa iga diideen, waxna ma maqlayaan. anigu waxaan ku dhahay, muxuu yahay bahalkaasi? laakiinse awow wuxuu dhahay, adiga sheekadani waa mid kaa weyn. isla habeenkii marka la gaadhay dadkii waa ay casheeyeen. ayeeday waxay soo qaaday cuntadii. aniguna waxaan ahaa mid dabagal ku haya ayeeday. ayeeday waxay timaaday qolkii, islamarkaasna waa ay soo xidhay. anigu waan daba socday wakhtigaas, iyadoo furiha ay dhigatay meesha ay dhigan jirtay. aniguna isha ayaan ku hayay. ayeeday waxay u soo dhacday dhankii qolka hurdada. aniguna waxaan ka soo daba qaatay furihii, islamarkaasna ayeeday ayaan iska fiirinayay inay seexatay. waxaan imaaday qolkii. marka aan furis dhahay qolkii, waxaan arkay Xamdo oo ay daba taagan. waxayna dhahday, waryaa maxaad samaynaysaa halkan? miyaad galis leedahay? anigu waan isku naxay. waxaan dhahay, waxaan rabaa inaan ogaado wax walba halkan ku jira, islamarkaasna waxaan kaa rabaa inaadan i sheegin. waxay dhahday, anigu xitaa waxaan rabaa inaan ogaado waxa halkan ku jira, laakiinse ma isku raacnay inaan midkeenna mid kala sheegin? haa ayaan dhahnay. intaa wixii ka dambaysay anigu qolka ayaan furay, islamarkaasna waxaan arkay inuu qolku mugdi yahay. waxaana maqlay codad aad u fara badan oo dhawaaqaya. furihii ayaan tuuray, islamarkaasna waan soo carray. waxaan dhahay, soo carar Xamdaay walaalayaan lagu cunin, soo carar. waan soo yaacnay. islamarkaasna waxaan imaaday qolkii hurdada. bustihii ayaan isku daday. wakhti aad u fara badan ayaan halkaa ku jiray. waxaanan ka warwarsanaa waxyaabaha dhici doona. aad ayaanan u cabsanayay. sikadiisa waxaan u maqlay ayeeday oo aad u qaylinaysa, weliba cod dheer ayay ku qaylinaysay. dadkii oo dhan waxay u yaacayeen dhankii qolkeeda. anigu waan yaabay. waxaas dhahay, talow maxaa dhacaya? gurigii oo dhan waxa uu noqday mid aad u wada qaylinaya. islamarkaasna hooyaday ayaa soo gashay iyadoo inanteedii yarida wadataa. waxayna dhahday, wiilkaygii haddii aad nooshahay alxamdulilaah. anigu hooyaday waxaan weydiiyey, waxaa dhacay? maxaa dhacay hooy ayaan ku dhahay. hooyaday waxay dhahday, waxaanba dhicin wiilkayow, waxba ha ka warwarin. waxaa soo gashay eedadii oo labadeedii hablood wadataa. islamarkaasna waxay dhahday, labadan hablood iisii haya, waxaan rabaa inaan u tago hooyaday oo xaaladeeda aad xun tahay. hooyaday ayaa eedadii waxay ku dhahday, anigu hore ayaan idiinku digay, wax walba waan idiin sheegay, aabbihiin xitaa waa uu idiinga digay, waxaani ma aysan dhicin maanta. islamarkaasna eedaday iyadoona jawaab siinin ayay iska sii baxday. Axlaam ayaa hadashay oo waxay dhahday, awow saas ayuu ku dhintay hadda miya? anigu waan naxay.
xamde ayaa hadashay oo waxay dhahday daaqadda ayaa la soo jebiyey islamarkaasna xoog ayaa loo soo jebiyey waxaa laga yaabaa in waxuu daaqadda ka soo dhacay anigu waxaan weydiiyey awow hadda muu dhintay miya waxay dhaheen awow waa uu dhintay sidaas ayuunu ku tegey maxaa yeelay waxaa la arkay isagoo qolkiisa dhex jiifa islamarkaasna dhintay hooyaday ayaa hadasho waxay dhahday carruuray idinku arkan waa uu idkan yahay ee iska aamusa mar dambana ha ka hadlin arrimahaasoo kale anigu waxaan ahaa wakhtigaas mid aad u ooya waxaan ka fikiraya oon isweydiinayay su'aalo fara badan waxaas lahaa awowga adiga dartaa miyuu u dhintay wixii meesha ka soo cararteen miyaa awowgaa dilay talow maxaa dhacay awowgaa xaguu ku dambeeyey waxaan oo dhan adiga ayaa ka dambeeya asxaabteeda qiimaha badan qisadeeda qaybta koowaad halkaas ayaan ku daynayaa insha allah waxaan soo gelin doonaa qaybta labaad sida ugu dhaqsiyaha badan inta aan ku kulmayno qisadan qaybteeda labaad waxaan idiga tegayaa sidaas iyo ramadaan wacan